maayarka magaalada Oodweyne ayaa ka hadlay shirka ay ugu baaqeen waxgaradka wadaadaga magaalada Burco. shirkina horumarka Soomaaliland waxtarayana waa caadi shirkii caqabad Soomaaliland ku hayana maanta kharashka ku baxaya in MCHU iskuul la geliyo ayaan runtii aanu ka doorbidayaa bulshadani maanta 18 sano jirta sidii maanta bulshadan ay adeeg bulsho loogu heli lahaa ayaan qabaa laakiin aanu shirka mana diidani mana tagayo runtii waxaan la fikrayo fikirka xukuumaddu garwadinka ka yimid madaxweyne Muuse uu ka qaato wallahi kuwaasaska iyagu wixii koogiyeen baa iyaga sheegi doona anu laakiin fikirka guud qaranka madaxweynaha hogaamiya annaguna waxaanu systemkii dawladda haddii madaxweynaha qaranku noo fasaxana waanu tagi haddii deena laga joojiyana dhanka kale maayarka waxa uu ka hadlay halka uu gaarsiisan yahay hankiisa siyaasadeed runtii wuxuu ku aadan yahay inaan intii awoodeyda koorsi socdo halkaan aan ka soo bilaabayna waa shaqadii halka laga bilaabo shaqa dawladeed wala dawladaha hoose waxaan ku guuleystay intii aan joogay wadooyin aanay hore Oodweyne u lahayn oo laamiyay inaan mariyo dhismayaal badan oo bilicla inaan Oodweyne ka dhiso xarumo badan oo dawlad waxbarashada iyo adeegga bulshada inaan ka sameeyno hankaygu waa wasiir iyo wixii ka sii sareeyay shaal Xamse Maxamed Muuse Cawke Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida